السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولالكن إسكيرا كسو دوادا muuqaal cusub muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa habka loo samaysto perfect money aad dad badan su-aalo naga soo weydiiyeen perfectiga habkan u samaystaa dad samaystaa jiro haddana oo verify oo ka diiday soo sababta uga diiday iyo sababta macnaha oo documentiga loo diray kusoo celiyey waa idin sharxi doonaa fadlan haddaa muuqaalkan ka faa'iiday u share garee walaalkaa jecel inuu perfect samaysto kusoo bir groupkeena telegramka aan ku leenahay wuxuu yaalaa committee ugu horeeya videogan ama descriptionka telegram groupkan ku leenahay iskaashi option traders kusoo bir insha allah waxaa kaaga horeeya dad firfircoon suuqa ka shaqaysta IQ option okay kusoo dhawaada muuqaalkeena waxaad tegaysaa Google Chromeka ayaad soo kicin doontaa Google Chromeka ka sign up gareey hadduu kugu jiro waa browserka ugu fudud haddana dadka badanaa ugu isticmaalka badan so Mozilla haddaa haysto isticmaali kartaa haddaa Firefox haysto isticmaali kartaa any browser waad ka sign up gareyn kartaa okay gmailkan sii kacsanaa oo aan ku samaysanayo perfect moneyga so code ayagu soo dhici doono member ID ayagu soo dhici doono hadhow aan ku kicinayo perfect moneyga okay halkan ayaan ku qoraynaa perfectmoney.com markaad qorto waa enter garaynaysaa so wuxuu ku keeni doonaa platformkan waxaad ku dhufan doontaa halkan ku qoran login waa idin calaamadeynaa halkan login ku qoran ayaad ku dhufan doontaa si aan ugu gudubno sign up okay that's good waan ku dhuftay login ayaan ku dhuftay so login markaa ku dhufto wuxuu ku dhahaa account hore haddaad haysato waa login garay kartaa haddii kale account cusub sign up garayso inta waxaa ku qoran halkan waxaa ku qoran so halkan isla egno to access your account please enter the member ID password and running image don't have an account haddaadan haysan account waa sign up garaynaysaa so sign up ayaan ku dhufanayna hadda account ma haysto waxaa rabaa in account cusub samaysto okay halkan waxaad gelinaysaa magacaaga Abdullahi Mohamed Hirzi okay so magacii ayaan soo koobiyin doonaa halkan ayaan ku basti gareyn doonaa full nameka so account nameka okay waan sameynay magacii account nameka waxa waaye accountka magaca kuugu samaysan full nameka waa personal namekaaga so halkan waxaa geli doontaa city ku qoran caasimada aad joogto Kismaayo haddaad joogto haddaad Nairobi joogto anyhow caasimada aad joogto ayaa halkan laga rabaa inaa caasimad geliso okay ani Muqdisho ayaan joogaa Muqdisho ayaan geliyay so halkan address ayaa geli doontaa addresskan meeshan aad geli doonto so waa inoo ahaadaa addresska aad ka soo qaadatay bangiga midda aan kala hadlayo fiirso addresska aad halkan ku isticmaali doonto waa inoo ahaadaa addresska aad ka soo qaadatay bangiga addresska aan gelin doono waa inoo noqdaa midka aad bangiga ka soo qaadato warqadda bangiga aad ka soo qaadatay addresskeeda ayaa halkan gelin doontaa so bangi addresska ayaan hadhow ku approve gareyn doonaa oo diri doonaa so hadduu iswaafaqi waayo addresska ku diiwaangashan account-kaaga iyo addresska aad u dirtay it will be declined waa la soo diidi doonaa so ku xisaabtan addresskana si sax u geli okay waxaa laga rabaa passport 3 verification laga rabaa passport iyo banki address iyo numberkaaga so halkan waxaa geli doonaa addresskii ayaan gashtay so halkan waxaa geli doonaa waddanka aad joogo Somalia okay you see Somalia waa kana halkan waxaa geli doontaa zip code-ka waddanka ama furaha waddanka waxaa waaye 00252 so dada waxaa geliyo 0025 ay geliyaan that's wrong 00252 de okay halkan waxaa geli doonaa emailka aan ku isticmaali doono
perfect moneyga. So gmailkayga ayaan soo copy garaysanayaa si aan hadhow ugu soo dhaco member ID-ga. So gmailkayga waa kan all the way, gmailkayga ayaan copy garaysanaa. waxaan waa very easiest. So isku day wax walba waad samayn kartaa haddii aad u soo jeedo. That's real. Okay, halkan gmailkayga ayaan gashtay. Okay, inta waxaa geli doonaa numberka aan ku isticmaali doono gmailka. Okay, waan gashtay, lambarkayga ayaan gashtay. So lambarkan hadhow waxay kusoo dhici doono codeka aan ku verify garay doono. hadhow lambarkan ayuu ku verify garay doona. haddii lambarka aan inta geliyay lambarka ku verify garay doono, haddii oo iswaafaqi waayo it will be declined. ku xisaabtan in lagu soo celi doono. informationka waa inay same ahaadaan. Okay, akoonka isticmaalayso personal miya mise waa individual? aniga midkaan isticmaalayo waa shakhsiyadeyda, anaa rabo myself ayaan isticmaalaya. personal ayay noqonaysaa. Okay, personal dooro. haddii business tahay, adiga businessman haddaad tahay waa dooran kartaa. halkan waxaan gashanaya gmailka, halkan waxaan gashanaya passwordka aan ku isticmaalayo akoonkayga perfectiga. So passwordka ka taxadir, passwordkaaga ka taxadir, iska sax passwordka. password aadan iloobeyn ka dhigo. Okay, waan gashtay. halkan waxaan geli doonaa capture-ka waa sawirkan si fiican indhaha uu kala furo 20330. That's good. halkan waxaa dhehe I agree with the terms and conditions. Okay, then register. akoonkii waan register gareeyay, perfect moneygii waan register garaystay. So waxaa leedahay welcome to the community of perfect money. The registration of your account is completed. aleeda macnaha registrationka waa dhammaystiray. registration progress. gmailka waxay igu soo dhacayo member ID-ga aan ku kici lahay perfect moneyga. So gmailka ayaan tegayaa, refresh ayaan dhihi doonaa gmailkayga si aan u helo member ID-ga igu soo dhacay. member ID-ga igu soo dhacay si aan u helo waan fiirinayaa insha Allah. gmailka ayaan ka fiirinayna. waa kana perfect money. laba message ayaa ku soo dhici doono. mid waa dear Abdullahi Hirzi, thank you for choosing to perfect money like that. information lagu mahad celinayo. midka kale waa member ID-ga ayaa ku xusan. So midka kor ayaan ku dhufanayaa. waa kana your personal member ID waa ka 83169196. So member ID-ga ayaan copysan doonaa. member ID-ga ayaan copy ka qaadan doonaa. Okay, member ID-ga ayaan copy gareeyay, then login ayaad ku dhufanaysaa. login markaad ku dhufato halkan waxa ku qoran iga tirtir. Okay, control V. halkan waxaan gashan doonaa passwordkayga. good. halkan waxaan geli doonaa capture-ka ayaan halkan gelin doonaa. otherwise adhe. Okay, kadib markaad saas u gaciso inaa perfectigaaga qofka passwordka uu ka heli karaa, member ID-ga qofka uu ka heli karaa. So waa bangi aad safe u ah. marka wuxuu ku dhahayaa gmailka ayaa code ku soo dhici doono. codekaas ayaa inta geli doontaa. wuxuu ku dhahay perfect I didn't check the detect that your IP address or browser has been changed. Okay, please check your email. halkan waxaa ujeedaa please check your email and enter pin code below. Okay, pin code-kana wuu dhacaa waqti 88 waxaa iga dhiman 25 second ayaa iga dhiman. So waa ka gaarsiinaya. refresh ii dheh, ka bax refresh ii dheh. codeka waa kana waa ii soo dhacayay. So codeka ayaad koobiyeysanaysaa. every login aad samayn doonto codekan uu kugu soo dhici doonaa. Okay, 7 second ayaa dhiman. control V, continue. Okay, waa ii kacay perfect moneygaygi. So perfect platformka waa kana my account, send money, exchange, currency exchange, deposit, withdraw, statement, analyze. ujeeda internal mail history, macnaha waxyaabaha aad dirtay iyo historygan ayaad ka fiirinaysaa waxyaabaha lagu soo diray.
so approvalka waxaa laga approve gareeyaa. So hadda waxaad joogtaa perfectigaaga, waa kana lacagihii waa kana my account-kayga. So lacagtan jiida bitcoin la falgashaa, tan waa USD dollarka, tanna waa euroga. So anaga waxaan isticmaalayna waxaa waaye USD-ga. Any bank aad haysato lacagteeda waad ku isticmaali kartaa intaan halka kugu xusan. Inta halka kugu xusan waa isticmaali kartaa haddii aad lacagteeda haysato lagu soo dirayo. Okay, waxaa laga approve gareeyaa. So platformka markaad saan u timaado waxaad approval ka dhehaysaa meeshaan waxaad ku dhufanaysaa modify seeding. waan ku calaamadeyn doonaa halkan ku qoran modify seeding ayaad ku dhufan doontaa. modify seeding markaad ku dhufato waxaa kuu soo bixi doona informationka aad ku diiwaan gashata bangiga Perfect Money. Okay, hoos ayaad wadaysaa, kadib waxaad dooranaysaa verification management. hadda your account status not verified, waa still ma verify gareysno. So waxaa rabnaa meeshaas your account status inay noqoto verified. Okay, waxaan ku dhufanaynaa verification management. markaan ku dhufano wuxuu inoo soo saari doonaa 3 option aan ku verify gareynayno bangigeena Perfect Money-ga. So waa kana 3 steps-ka. your account status not verified, waxaa laga rabaa 3dan step inaa halkaa meesha zeroga aad kusoo buuxiso. waxay kusoo buuxsami kartaa halkan waxaad ku diraysaa passportkaaga, halkan waxaad ku diri doontaa passportkaaga sawirkiisa. haddii lagu soo aqbalo one verified ayaa sameysay. So next one waxaa waaye halkan waxaad gelin doontaa bangi addresska aad soo qaadatay. addresska datan kusoo diiwaan gelina warqadii aan ka qorta addresska aan bangiga ka soo qaata halkan gelin doonaa. halkaasna waxaad gelin doontaa number formkaaga, your phone number ayaa gelin doontaa. Okay, marka labadan option kore lagu soo aqbalo passportka iyo bangi addresska marka la soo aqbalo then ayaa lambarka ku furmi doona optionka numberka. Okay, hadda waxaan aadaynaa dhanka mobilka ayaan idin share gareynaa mobilkayga. So waxaan idin tusaa application aad ku scan gareyn karto. anigu IQ markaa sameysanayay scan gooni ma aadin, markaa perfectiga sameysanaya scan gooni ma aadin. So application aa jiro lagu scan gareysto, applicationkaas waa clear scan. So hadda idin share gareynaa habka meeshaad kusoo degsanayso iyo qaabkaad ugu scan gareynayso. fadlan ila soco, waxaan aadaynaa dhanka mobilka. qaaliga waa kana idin share gareey mobilka. So hadda waxaan idin tusayaa applicationka aad ku scan gareynayso documentiga aad u diri doonto Perfect Money-ga. So waxaad tagaysaa Play Store-ka markaad tagto halka searching-ka ah waxaad ku qori doontaa clear scanner. dad uu soo qabanayna jiro Play Store-ka. So videogan description-kiisa ama comment-iga ugu horeeya ayuu yaalaa, inshallah halkaas ka degso. halkan waxaad ku qoraysaa clear scanner. clear haddaan qoro waa kana uu soo boodo clear scanner. So application-ka waa kana clear scanner free documents. ana hadda uu degsan yahay open ayuu yahay. hadhow adiga install ayaad dhihi doontaa inshallah. waa soo install gareynaysaa then wuu kuu soo geli doonaa mobilka. hadda open gareynaynaa. So documentiga aan ku sawirayo habkan ugu scan gareynayo ayaa idin tusaya inshallah. So this is my passportka. For example passportka ayaan ku sawiri doonaa. habka loogu scan garey doono waa idin tusaya. So passportkii waa kan. So waad ku sawiri doontaa hab aan cawaar lahayn. So waan sawiray passportka kadib wuxuu kusii doonaa heelaad ayuu ku saari doonaa. waad cabiranaysaa meelaha aariyada ku jira iyo zoom yar ku siinaa meelaha aariyada ku jira waa ka soo celinaysaa. So sawirka hadhow markaad ka qaadaysid hab nadiif inaad ugu qaado ayaa la rabaa. ku xisaabtan sawirka aad ka qaadi doonto si nadiif inaad uga qaado ayaa la rabaa oo aad ugu aadiso hab
hab caadi ah inaa ugu aadiso oo si fiican macnaha hadda laablaaba ku jiro mujeedido aniga uguma talagelin hadda aniga inaa u diro uu ii verify garaysan yahay soo tusaale ahaan ayaa idin siinayaa okay kadib asaa toosinaya waa kana baasaboorkii uu ii toosiyey original dooro soo originalka wuxuu kuu soo saari doonaa sawirka nadiifka ayuu kuu soo saari doonaa photo iyo waxaan waxay ku furayaan effective ayay ku furayaan soo original dooro then waa save garaysanaysaa markaad save garaysato waxaad ka baaraysaa file managerkaada ayaa ka baaraysaa internal storage okay waxaad ka raadinaysaa applicationka magaciisa clear scanner then waa kana sawirka hadda aan baasaboorka qaaday midka thumbnailka isticmaalaysa kan resultiga ku qoran isticmaal soo kan thumbnailka half waa kan resultiga wuu badan yahay soo documentiga kalena saas ayaad u sawiri doontaa documentiga oo bank addresska okay hadda waxaan ku laabanaynaa shaashada automatic waxaan u diraynaa labada documenti insha Allah okay asxaabta qaaliga ah hadda mobilka waa ka soo laabanay waan soo sawirinay documentigii warqadii bangi addresska iyo baasaboorka soo hadda ayaan u diraynaa approvalka ayaan u diraynaa baasaboorka iyo bangi addresska soo qarso barnaamijyada baasaboorkaaga iyo warqadaada bangi cidda la shirgareynin iyo personalitygaada waaye soo qarso privacy ku ahaada soo hadda ayaan u diraynaa juice ayaan dooran doonaa juice markaan doorto then wuxuu ku soo saari doonaa faylkaaga ama documentiga aad rabto inaad u dirto meesha uu ku yaalo computerkaada waa ka taqaanaa okay waxaad ka baaraysaa sawirka aad rabto inaad u dirto soo halkan ayuu ku jiraa okay halkan ayuu ku jiraa okay sawirka waan u diray soo sawirka still uma dirin ma upload gareynin sawirka baasaboorka ma upload gareynin laakiinse waa soo doortay kadib waxaa leedahay upload document ayaa leedahay upload document markaad dhahdo okay ayaa leedahay waa soo laabanaysaa flairta documentiga ugu horey wuxuu ku maqan yahay pending ayuu ku maqan yahay soo waxaan dooranaa next document markaan ku dhufto meeshaan halkan waxaan gelin doonaa warqadda bangi addresska soo juice ayaan leeyahay then waxaan soo dooranaa warqadda bangi addresska soo waatana waan soo doortay kadib upload gareynaa okay ayaan leeyahay okay labada dhinac hadda wuxuu ku socdaa pending labadaa marka lasoo accept gareeyo kan kore oo verified noqdo kan ku xigo verified noqdo then ayaa lagu furi doonaa status phone numberkaaga ayaad ku verify gareyn doontaa waa midka ugu dambeeya okay isku soo laabanaynaa maalmo kadib 2 maalin kadib ayaan isku soo laabanaynaa soo jagaray mar walba jagaray in kugu soo celiya laga yaabaa sawir haddana ku celi ha quusanin baasaboorka sawir ku celi warqadda bangi addresska sawir ku celi in haddii lagu soo celiyo adana ku celi si fiican u sawir mar walba sawirka aqaadi isku xisaabtan inuu nadiif ahaado inuu heelaadkiisa sawirka geesihiisa leemankiisa inay macnaha qalqaloc inuu ahaano right line inuu ahaado isku day hadduu sawir qalqaloc yahay kaama aqbali doonaan okay waan isku soo laabanaynaa 2 maalin kadib asxaabta qaaliga ah waan isku soo laabanay maalmo kadib hadda waxaan fiirinaa verification details ka fiirinaa in la verify gareeyay account-kayga so account verification ayaan ku dhufanaa verification management ayaan ka dooranaa so verification management haddaan ka doorto waxaan arkaa in la ii aqbalay saddexdaba waa ku verify gareeyay halka baasaboorka aan ku dirnay waaye halkan waxaan ku dirnay bank addresska halkaana number ayaan ku verify gareynay okay lambarka marka lagu verify gareynayo ma soo duubi karno so way adag tahay waa idin sheegaa shuruucda aad marayso marka labadaas lagu soo aqbalo baasaboorka iyo bank addresska lambarkaaga markaad geliso isku diyaari wicitaan soo taxadir yeelo dhagahaadana fur lambarka markaad geliso oo aad taabato verified markaad taabato waa lagu soo wici doonaa lambar ayaa kusoo wici doonaa
numberkaas wuxuu ku dhihi doonaa si taxadir leh u dhegeyso kood ayaan kuu yeeri doonaa 2 mar aa lagugu celinaa 2 mar iska xaqiiji qalin iyo warqad iska soo agdhawey wuxuu ku yeerinaya naagaa ku yeerinaysaan jeclahay speed ayay ku yeerinaya speed markay ku yeeriso adee dhegtaada inaa furtaa laga rabaa wuxuu ku dhehe 52319 haddana ku celinaya 52319 marka dhegaha inaa u furtaa la rabaa that's for example okay hadda waa la verify gareeyey akoonka asla diiwaangelinayna waa verified hadda haddaan dib u laabto for example haddaan dib u laabto haddaan flaarta dib u celiyo waxaa caddeen u ah inta fiiri markaan dib u laabto waxaa caddeen u ah verified haddaatan waxaan idhahayay your account status waxay noqon doontaa verified haddii lagu verify garay baasaboorkii numberkii iyo bangi addresska okay waxaa filaya inaa muuqaalka ka heshay la wadaag walaalkaa jecel inuu samaysto perfect money waxaa su-aal qabtane qaybta commenteska noogu soo dhaaf insha allah waan kaa caawin doonaa insha allah waa laga caawin doonaa mideeda kale kusoo bir hadda groupkeena iskaashi option traders haddaa jecesha inaa kamid noqoto commenti ugu horeeya linkiga ayuu yaalaa telegram groupkeena kusoo dhufo insha allah automatic wuxuu ku keeni doonaa groupka telegramkeena si aad ugu mid noqoto bahda iskaashi option traders aad u noqoto xirfadle trader IQ option fadlan waxaa filaynaa muuqaalkan ka heshay subscribe saar like garee videoga la wadaag asxaabtaada si uga faa'iidaystaan anaga muhiimadeenu maahan inaan lacag idinka rabno anaga waxaan rabnaa dhalinta Soomaaliyeed in ay gacanteeda ku shaqaystaan soo maamaah waxay dhaheen qofka malayga sida loo dabto ku baro qofkaas waa macalinkaaga ilaa mar walba uma baahanaysid adaa soo daban doonto laakiin hadaa mar walba malay ku siiyo ma dhargeysid marka daazid taas tusaale ayay noo tahay okay waxaan filaa inaad ka heshay muuqaalkan like garay u share garay asxaabtaada la wadaag saaxiibkaa jecel inuu samaysto perfect oo inuu muuqaalka xiga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh